بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونحسن داوداشة قيمها قدرين تنقم بضنا وحل سوقاري وقت قاد داون جرتين وركا تيفيقا قرنك الصوماليلاند وحا وركا وديارا ودل السعودين هي أنيقو حمسة علي بلبلا وركي وقوبان مدحوينka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxa uu aqalka madaxtooyada ku qaabilay wafdi saro ka socday shirkadda Vitol ee shidaalka dalka Britain kuwaas oo maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee madaarka magaalada Hargeysa kulan ballaaran oo lagaga hadlayay oo ay ka soo qayb galeen bulshada gobolka Sanaag kaas oo lagu lafagurayay qaranka wadooyinka gobolada Sanaag iyo Togdheer ayaa waxa lagu qabtay magaalada Cerigabo qaahirana waxa ka dhacay qarax weyn oo ku dhinteen 4 qof halka 76 kalena ay ku dhaawacmeen intaas waa qaar ka mid ah qodobadii warka mikro diyaar garooba isagoo fidsan madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxa uu aqalka madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay wafdi saro ka socday company-ga Vitol oo ah company shidaalka garoonka diyaaradaha ee madaarka magaalada Hargeysa ayaa mas'uuliin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxa uu aqalka madaxtooyada ku qaabilay wafdi saro ka socday company-ga Vitol ee dalka Britain ee dhinaca shidaalka ka qayb qaata kulankaasi waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar kulankaasi labada dhinac waxay kaga wada hadleen sidii maalgelin xooggan loogu sameyn lahaa haamaha shidaalka ee magaalada Berbera iyo dekedaba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxa wafdigaasi ugu mahad celiyay iskaashiga fiican ay la soo sameeyeen xukuumadda Soomaaliland isagoo balan qaaday in dawladda Soomaaliland ay gacan fududeen iyo horumarin ka sii doonto sidii maalgashigaasi u sameyn lahaayeen waxaanu ku booriyay in Soomaaliland ay dhiirigelinayso dhinaca xorriyadda maalgashiga isagoo soo dhaweeyay cid kasta doonaysa inay maalgashi ku sameyso dawladda Soomaaliland iyo shacabkeeda kor intaanu madaxweynaha Soomaaliland aanu la kulmin wafdigaasi waxay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee madaarka magaalada Hargeysa waxaana la socday wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yunis iyo wasiirka ganacsiga Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay madaarka Hargeysa waxa uu sheegay in company-gu yahay company-ga ugu weyn dalalka caalamka ee maalgeliya dhinaca shidaalka isagoo faahfaahin ka bixinaya ujeedada socdaalkooda ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibaddu waxa uu yiri waxaan ku faraxsanahay aniga iyo wasiirkii ganacsiga Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka soo degay madaarka Hargeysa waxaan la socday wafdi ka socda company-ga la yiraahdo Vitol oo aanu Berbera isu raacnay intaan aad ka soo duulay wafdigaas oo ka kooban 5 qof oo doonayay inay eegaan haamaha petroolka Vitol waa company-da caalamka ka ugu weyn ee budgetkiisu waa 330 bilyan last year marka waxay doonayeen inay maal gashadaan marka waanu soo tusnay dekadii iyo meelaha haamahaba si fiican bay u dhacday waana iska fiicannahay asoo la socotana waxaan ka imid Turkiga iyo Paris waxaan malay wara badan horaan bixiyay shirkadii Turkigu aad iyo aad buu fiicnaa waa la wada socotaa ma ka dhageysantiin ومن ملاين ما يو هنا وحدة كوسيجين هنا سيء شيء وحيابها هو وين كسر بحماش وحيا هاين أركي حسوقة atrocities وقالنا for the first time يو ما رأيت حاولوا بدل أو كله أو كله لها road map كيسيدا حبك عنو سعون دونوس وده هذا لو صار صعدة حيقول مقالين مقتشلة أي لهذا وحن لو قبني هرجيس يحمر markaasi kumaan meeshin mana dhacayso mana imanayso waxa kale oo aan doonayaa dadka u sheego Soomaaliland tala ay gaadhay bay sameysay oo ahayd in ay gaar isu taagto shacbiga sameeyay cid ka noqonaysa ma jirto markaan waxba la isku weerareen wax xamar laga yiraahdo ay toodun aan wadano dadkuna ay ogaadaan in ay ummad jirta oo joogta oo maanta shaqaynaysa cid aanu maaragtay u daba fadhiisanayna ma jirto goonisu taageena sidaasaan كنا بدي مدرسة نحن نسول عن مدحونا فارس ما نقول تجني فارس نروح الله كلنا وزير الخارجية هي سنة كاسف عن بدنا نلوسه دوي وحافظنا نأخذ هذا
marka warkeeta badan waa disiyaana mahadsantiin kulan ballaaran oo lagaga hadlaayay oo ay ka soo qayb galeen bulshada gobolka Sanaag kaas oo lagu lafagurayay qaaraanka wadooyinka gobolada Sanaag iyo Togdheer ayaa waxa lagu qabtay magaalada Cerigabo Saraaf ayaa warkaas waxa uu ka soo diray Cerigabo ballaaran oo lagaga hadlayay dardargelinta howlaha qaaraanka dhismaha wadada gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Cerigabo kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga qaadaan ururinta wadada ee degmada Cerigabo ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag qaar ka mid ah isduwayaasha hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka guddiga qaadaan ururinta dhismaha wadada Cerigabo iyo cuqaal aad u tiro badan waxaana ugu horreynba kulankaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddiga qaadaan ururinta wadada Cerigabo Siciid Barre Qorwa oo shaaca ka qaaday in ay meel fiican marayaan hawlihii dhaqaale ururinta wadada gobolka Sanaag waxaana gudoomiye ku-xigeenku ku nuuxnuuxsaday sida bulshada gobolka Sanaag dibad iyo gudaba looga baahan yahay inay hormood uga noqdaan qaaraanka dhismaha wadada Sanaag lagaga qayb qaadanayo isagoo intaana raaciyay muhiimadda dariiqan ugu fadhiyo guud ahaanba bulshada gobolka Sanaag haddii aanu nahay guddiga qaadaan ururinta haddii aanu warbixin yar oo kooban idinka siino hawlihii ammaan ahaan loo ka tagay guddiga qaadaan ururinta qaranku ay nooga tageen ilaa maalintii loo ka tagay ilaa yoomana hada annagu maanu fadhiisan orod baanu ku jiray waxa weeyaan markii horeysay qaab ahaan annaga is dhisnay guddigii baanu dhisnay waxaanu dhisnay xafiiskii baanu diyaarinay waxa weeyaan hadda waxaanu u qaybsanahay 7 group oo groupka u horeeya group ah diiwaangelinta iyo abaabulka iyo 6 group oo ah dabagalka lacagaha magaalada lacagta magaaladu waxa weeyaan lacag badan bay ahayd ganacsatada isku qortay waxa isku qoray dhalinyarada waxa isku qoray haweenka waxa weeyaan dabagal weyn baan ku sameynay hadda waxaanu diyaar u nahay inaan gurgur u gallo meel fiican bayna noo maraysaa marka aanu soo gabagabayno ayay noqonaysaa inaanu sheegno cadadda dakhliga noo soo xirooday waxa iyaguna kulankaasi ka hadlay cuqaal aad u tiro badan oo dhammaantoodba halkaasi ka cadeeyay sida ay diyaarka uga yihiin bixinta hantidii iyo xoolihii laga sugayay beelahooda iyagoo guddigana u xaqiijiyay in xilliga loo baado ay soo tubi doonaan wixii maal iyo xoolaba ahaa ee ay hore ugu yabooheen waxa kaloo iyaguna kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga qaadaan ururinta dhismaha wadada Cerigabo Boqor Maxamed Boqor Axmed Cali Ducaale iyo afhayeenka guddigaasi Siciid Bidaar oo labadooduba ku booriyay cuqaash inay laban dadaalkooda ku wajahan ka qayb qaadashada qaaraanka dhismaha wadada gobolkooda waxa kaloo intaas ay ku dareen in dhawaan ay xukuumaddu gobolka soo gaarsiin doonto qalabkii iyo mucaadaadkii dhismaha wadada si lagaga shaqayn lahaa sida daraadeedna bulshada gobolka Sanaag looga fadhiyo diyaarinta saamigii dhaqaale ee ay wadada kaga qayb gali lahaayeen gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa shacbiga gobolka Sanaag ugu baaqay in la gaadhay xilligii bulshada gobolka Sanaag ay naf iyo maalba u huri lahaayeen dhismaha wadada gobolkooda isagoo si weyn gudoomiye ku-xigeenku ugu mahad celiyay bulshada reer Soomaaliland dibad iyo gudaba sida ay ugu heelan yihiin sidii ay gobolka Sanaag ugu xidhi lahaayeen gobolada kale ee dalka godoonkana ay uga saari lahaayeen wadadaas oo uu madaxweynuhu inoo dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaayo uu inoo dhagax dhigay nin kasta oo ka hawlgalay ama ka qayb qaatay hadduu qurba joogo iyo hadduu gobolada Soomaaliland joogo meel kasta uu joogo nin kasta waa mahadsan yahay boqolkiiba salaam u dirinayo sharaf inagana waxaa inoo ballanaa haddaynu nahay gobolka Sanaag inagoo gobolkeennii ay wadadu soo gelayso waxaynu kaga dambaynaa gobolada kalena ay tahay wadda la'aanta weeye waa inaynu aad uga hawlgallaa ciidima laha waxa weeye inaga faa'iido u badan leh waayo Cerigabo soo gelaysaa wadadu Cerigabo hadday soo gasho Cerigabo waxay noqonaysaa magaalo waxaynu kala socdaan sida gobolada kale oo ومحمود محمد حسن صراف تيفي قرنك الصوماليلاند Cerigabo wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliland waxay kutubta Quraanka Kariimka u qaybisay masaajidada iyo madrasadaha magaalada Caynabo ee gobolka Sanaag sidoo ku soo waramayo wariye Jaamac Boodacade
wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxay madarasadaha iyo masaajidada kala duwan ee magaalada Caynaba u qaybisay dirsin kitaabada Quraanka Kariimka. Munaasabadii lagu qaybinayay kitaabadan Quraanka Kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay suduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saraar Jaamac Axmed Nuux, qaar ka mid ah maamulayaasha madarasadaha iyo imaamyada masaajidada waaweyn ee magaalada Caynaba iyo waliba xubno ka mid ah culimada gobolka Saraar. Waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay suduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saraar Jaamac Axmed Nuux oo ka warramay kitaabadan iyo tirada ay yihiin iyo waliba cidda soo bixisay. una qaybinayno masaajidada magaalada Caynaba iyo magaalooyinka kale qaar ka mid ah waxay u gaadho waxaan ka soo qaadnay kutubtan wasaaradda diinta iyo awqaafta. haddii ilaahay idmo waxay u gaadho ayaanu qaybinaynaa. kutubtaanu hadda halku qaybinayna waxa weeyaan 200 oo kitaab. haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo kaga faa'iidaysanayaa xafladan macallimiinta qur-aanka sidaa ka warqabtaan idaacadaha ka dhegeysateen. wasaaraddu waxay rabtaa inay kor u qaado xagga waxbarashada qur-aanka. hay-ada islaamiga oo kalena waa inoo yimaadeen oo arrintaas dardar gelinaya sidii maaragtay qur-aanka iyo madrasadaha kor loo qaadi lahaa. sidoo kale Sheekh Maxamed Sirada Kharre oo ka mid ah culimada diinta waaweyn ee gobolka Saraar ayaa ka mahadnaqay kitaabadan Quraanka Kariimka ee loo qaybiyay madrasadaha iyo masaajidada kala duwan ee magaalada Caynaba, isagoo sheegay in loo baahan yahay in halkaas laga sii wado. Simuhu noo keenay kutubtii maaragtay oo watarooteeda taala diwaan furjeen maaragtay sidaas uu noo keenay. waana markii koowaad wasaaradda awqaafta diinta ay naga soo gaaraan ama macaamis kutub ah ay soo gaaraan. xafiisku hore waa u jiray laakiin sida wuxuu ahaa maaragtay xafiisaan maaragtay aan maaragtay qalabaysnayn ama shaqada dininka ay ka shaqeeyo. asiyada kutubtii waana soo gaadhay. dee waxaan leenahay wasaaradda diinta iyo awqaafta dee waa dhasheene dee ka kordhiyo wixii kale na dee waa laydinka rabaa maaragtay wasaaradaha kale si lagu halgamayo sida maaragtay wax walba loogu halgamayo dee diintana ugu halgamayo idinka maaragtay maadaama dee dowladdii ka tirsan tihiin wasaaraddii. sidoo kale xubno iyaguna ku hadlayay afka maamulayaasha madrasadaha iyo imaamyada masaajidada magaalada Caynaba ayaa sheegay in loo baahan yahay in markasta wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ay garab taagnaato madrasadaha ku taxalluqa dhinaca tarbiyadaynta ardayda. waxaan halkan mahad aad iyo aad u sareysa aan uga mahad celinaya wasaaradda diinta iyo awqaafta oo markii ugu horeysay kitaabta Quraanka Kariimka la guddoonsiisay. waana ku guddoonay isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta. iyadoo ugu dambeyntiina halkaasi kitaabadii kala duwan oo ku guddoonsiiyay qaar ka mid ah maamulayaasha iyo madrasadaha kala duwan ee iyagu ka howlgala gobolka Saraar. Jaamac Boodacade, TV-ga qaranka Soomaaliland, Caynaba. isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xaaladda caafimaadka gobolka Awdal iyo waxqabadka ku talaabsadeen wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Abakar Xasan Caafi ayaa boormo warkan ka soo diray. isuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamacade ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii uu qabsoomay sanadkii 2013 isagoo tilmaamay inay xoojiyeen tayeynta iyo meelmarinta adeegyada caafimaadka ee bulshadu u baahan tahay ee dhinaca MCH-yada. qaybo badan ayaan ku kordhinay caafimaadka gobolka sida xanaanooyin badan oo u fara badan oo haya iyo saylac labadaba. MCH-yada gobolka Awdal waxay ahaayeen markii hore 2015 maanta sanadkii dhigay waxay noqdeen 23 markaa 8 xanaano ayaan sanadkaa ku kordhinay. heersiboysyada oo meelaha daryeelayaashu ay joogaan sidaasoo kale tirooyin ayaan ku kordhinay bay ahayd. markaa guud ahaan sanadkaa ina soo dhaafay 8 xanaano ayaan horta ku kordhinay iyo shaqaalo dhan 170 shaqaale ah oo maanta shaqaalaha gobolka Awdal waxa weeyaan 350 shaqaale ah halkii awal tuuliye ay ka ahaayeen 170 ay ka ahaayeen. sanadkii tagay
waxqabadkii wuxuu ku ekaa MCHyadaasi aan kordhinay iyo shaqaalaha caafimaadka mar kale waxa uu isduwaa caafimaadka gobolka Awdal oo carabka ku dhuftay inay u qorsheysan tahay sanadkan 2014 in adeegyada caafimaadka ay u dhaadhiciyaan tuulooyinka iyo degmooyinka gobolada Awdal iyo Salal oo dhakhaatiir kala duwan la geyn doono sanadkan cusub 2014 noqonaya in maadaama aan xanaanooyin aan kordhinay sanadkan aan awoodda saarno xagga isbitaalada oon isbitaalkiisa inacna dib u dardargelino luqayana mid aan u samayno iyo xariira saddexdaas waxaa kaloo noogu jira isbitaaladii degmada Baki iyadna sanadkan aynu qorshaysan yahay marka saddexda degmo Baki luqaya iyo Seylac min hal isbitaal ayaa sanadkan aan ku tali jirnaa sidoo kale xariirad oo community u dhistaan isbitaalkaasi uu noogu jira waa ka afraad buu noqonayaa ka shanaadna sidii maalintii wasiirku ugu soo ballan qaaday degmada Boon in iyadna isbitaal ay yeelato oo referral health center ayaan ugu tali jirnaa runtii markaa guud ahaan sanadkan cusub oo barnaamijka la yiraahdo EBHS ka bilaabmayo gobolka shaqaalayn iyo dhaqaajintii isbitaalada degmooyinka iyo xariirad iyo Boon ayaan qorsheysan runtii waxaana hadalkan isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamacade uu ku soo beegmayaa xilli kulamo kala duwan oo lagu tayeynayo caafimaadka gobolada Awdal iyo Salal oo ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka hay'adaha caalamiga ah ee kala shaqeeya dhinaca caafimaadka oo kulamo kala duwan uga socdo magaalo madaxda gobolka Awdal ee Boorama waa Caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanku waxay sheegtay inaanay dhimaynin ciidamada ka jooga bariga dhexe dalka Mareykanka xilli xaaladda dalka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan iyo dalalka reer galbeedku ay kacsan tahay faafaanta warkaasi waxaynu hayaa oo wakaaladaha wararku ay diyaariyeen wariye Axmed Ismaaciil Bucul wasiirka difaaca ee dowladda Mareykanka Jack Haykel ayaa sheegay xukuumadda Washington inaanay weli go'aansanin wax isbedel inay ku samayso ciidamada ka jooga mandaqada Khaliijka iyada oo 35,000 oo askari oo Mareykani ay ku sugan yihiin mandaqada Khaliijka waxa uu sheegay dowladda Mareykanku inaanay weli go'aansanin in tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan mandaqada Khaliijka wax laga dhimo inkasta oo Mareykanka iyo dowladda Iiraan ay ka heshiiyeen khilaafka dhinaca nuclearka wasiirka difaaca ee Mareykanku waxa uu sheegay in uu sii wadi doono dowladda Mareykanku dadaalka diblomaasiyadeed ee dalkaasi Iiraan waxa kale oo uu sheegay in xukuumadda Washington ciidamadeedu ay sii joogi doonaan mandaqada bariga dhexe iyaga oo damaanad qaadaya ammaanka mandaqadaas dowladda Iiraan iyo shanta dowladood ee golaha ammaanka oo uu heliyo Jarmalku ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan in dowladda Iiraan ay dhinto barnaamijkeeda nuclearka ah kayagelintiisa 6 bilood ay nagu soo foolle heshiiskan ay wada galeen dowladda Iiraan Mareykanka iyo Jarmalku ayaa dhigaya in hay'adda atomiga caalamiga ah ay sii wado hawlgallada baaritaanka ah ee ay ka sameynayso goobaha nuclearka ee dalkaasi Iiraan ee ku shaqeeya biyaha culus dadka u dhuun daloola arrimaha Khaliijka Carabta ayaa sheegaya inuu hoos u dhacay cilaaqaadka dowladda Mareykanka iyo wadamada Khaliijka ee Carbeed kadib markii dowladda Mareykanku ay wax ka bedeshay siyaasadaha ay kula dhaqmaysay dowladdaasi Iiraan wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanku maruu ka hadlayay xaaladda dalkaasi Suuriya waxa uu sheegay dowladdiisu inay sii wadi doonto kaalmada bini'aadanimo oo ay siiso barakacayaasha Suuriyiinta ah ee ku sugan wadamada dalka Suuriya ay jaarka yihiin ee Urdun iyo Turkiga waxa kaloo intaa ku daray in dowladda Mareykanku ay sii wadi doonto dadaalka ay ugu jirto sidii xal diblomaasiyadeed loogu soo aftari lahaa mushkiladda ka taagan dalka Suuriya madaxweyne Obama waxa uu soo dhaweeyay tallaabadii magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia ay ku gaareen hogaamiyaasha koonfurta Suudaan kuwaas oo ku heshiiyay in xabad joojin ay samaystaan
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa soo dhaweeyay heshiiska xabad joojinta ee ay wada galeen xukuumadda Koonfurta Suudaan iyo kooxda fallaagada ah ee ka soo horjeeda kaasoo ay ku kala saxeexdeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya in la soo dhameeyo dagaalka muddada halka ka socday ee ay ku barakaceen dad tiradoodu gaadhayso nus milyan qof. Obama ayaa ku tilmaamay heshiiskan tallaabadii ugu horeysay ee dhinaca nabadda loo qaado waxaanu ugu baaqay dhinacyada ku loolamaya Koonfurta Suudaan inay xal diblomaasiyadeed ku dhameystaan khilaafaadkooda. madaxweynaha Mareykanka Obama oo la hadlayay hogaamiyaasha Koonfurta Suudaan ayaa sheegay in la soo gaaray waqtigii ay damaanad qaadi lahaayeen hogaamiyaasha Koonfurta Suudaan mustaqbalka dawladooda yar ee cundika. heshiiskan xabad joojinta Koonfurta Suudaan ayaa lagu kala saxeexday hudheel ku yaala magaalada Addis Ababa oo ay wada hadal ku dhex marayeen. warbixinaha ugu horeeyay ee ka soo baxay heshiiskan ayaa sheegaya in wadahadallada labada dhinac ay galeen meel cidhiidhi ah kadib markii kooxaha mucaaridku ay dalbadeen in la sii daayo 11 siyaasi oo ay xidhay dowladda Koonfurta Suudaan iyadoo waqtiga lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen inqilaab isku dayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Koonfurta dalkaasi Suudaan. arrintan ayaa sababtay dagaalo socday muddo toddobaadyo ah oo ay ku barakaceen nus milyan qof kumanaan kalena ay ku dhinteen. Qaahirana waxaa ka dhacay qarax weyn ay ku dhinteen 4 qof 67 kalena ay ku dhaawacmeen. Ahmed Ismaaciil Bucul ayaa warkaasi noo haya. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay 76 kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo qarax lala beegsaday xarun ciidamada ammaanku ay leeyihiin oo ku taala bartamaha magaalada Qaahira. qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. qaraxan ayaa kiciyay daruuro qiiq ah oo hareeyay goobta qaraxu ka dhacay. sidoo kale god weyn ayaa la sheegay inuu ka qodmay goobta qaraxaasi ka dhacay waxaanay burbur soo gaadhay dhismayaasha hareeraha ka xigay goobta qaraxa lala beegsaday oo ku taala mandaqada Sayn al-Caabidiin ee magaalada Qaahira. xaaladda ammaanka ee magaalada Qaahira ayaa guud ahaan aad loo adkeeyay iyadoo ciidamo badan oo ammaankiina ay ku sugan yihiin marka goobta qaraxaasi ka dhacay. weerarada la beegsanayo xarumaha ciidamada ammaanka ee dalka Masar ayaa sii kordhaya maalinta ka dambaysa intii ka dambeysay markii xukunka laga tuuray madaxweynihii ka soo jeeday ururka Ikhwaanul Muslimiinka ee ay inqilaabeen militariga dalka Masar. inta waxaan ku soo koobi doonaa warbixii TV-ga qaranka Soomaaliland idinhay waxaana warkeeda la socodsiinayay anigoo Xamse Cali Bulbul asxaabtii ee kala qayb qaatay tabinta warka diyaarinta farsamada sawirada xiga tagaya. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.